kulankan uu soo qaban qaabiyey imaam maxamed yuusuf ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre, xubno ka tirsan golihiisa wasiirada cusub, xildhibaano iyo waxgarad. kulankaasi waxaa shir gudoominayay imaam maxamed yuusuf. wasiirada cusub ee xukuumadda uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxgarad iyo xubno kale oo siyaasiyiin iyo maamulka gobolka Banaadir ah ayaa ka qayb galay. waxaana kulankaasi uu ka qabsoomay guriga imaam maxamed yuusuf. inta badan kulankaasi waxaa lagaga hadlay taageerada xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. saxaafadda ayaana dibajoog ka ahayd. imaam maxamed yuusuf, imaamka beelaha dega gobolka Banaadir, ayaa soo dhoweeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, waxaana uu rajeeyey xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay inay noqoto mid gudata xilkeeda. توحيدكنا قاتمه إلهي إذن كيس واحد هم يسين هوست الله إذن صادق إلهي أنا إذن بريناي إلهي واحد إذن بدل ما تصل إلهي إذن كيس وحي الله دع دع الدين الله خدقه إلهي إذن كيس إذن كان دولة ذكر الله خدقه لكن في عدالة إيه النبت قليل الدين كانوا حكمت الله إذن خدقه. imaam maxamed yuusuf, imaamka beelaha magaalada muqdisho, ayaa ugu dambayntii baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay in ay codka kalsoonida siiyaan golaha wasiirada cusub ee soo magacaabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. khilaafka Allah ka daayo mooshin aan nooga ka horay jiray mooshinka ku baabashalay daga dhigo maalin dhow hadii lagu doorahay ma lahayna dhibe haddana midaan dambe ilaahay idinkiisa qalbigiina khayr Allah soo marsho waan idin halmariyay kuwa sama ku shaqeeyay daga dhigo baarlamaanka waxaan ugu baaqayaa dawladdan hadii alla yiraahdo inaysan mooshin qashin ugu keenin inay ansaxshaan oo ay aqbalaan waa dhibaataysanahay abaaraan hayso colaan nahaayo dawladda aan ugu la taabanin hadii ilaahay raasaasan ku dardaarma waxaan ahay boqorkii dhulkaanaan ahay taladayda ha yeelaano barkooda sabeen ali soo xijiyo allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim. Abdasiis Ibrahim Ahmed, Universal TV, magaalada Muqdisho.